lacag bay rabtaa dadaal bay rabtaa waxa ugu weynay rabtaana waa naftaaday rabtaa dadka qaar dhalinyarada qaar waxay u maleeyaan in haddii dhaqaale badan la helo in noloshu fudaanayso in lacag badan hadaa heshay wax hagaagayaan in aabaha hadduu caan yahay albaab kuu furmayaan in dad waddan kala joogto aad ka nolol fiicnaan lahayd sidanood ka barwaaqo badnaan lahayd waxyaabo badan oo nafteenna ay ku hamiyeyso waxaan moodnaa inay lacag iyo resources naga xigaan kaama xigaan saaxiib waxa jira dad ka dhaqaale badan oo dad ka guul fiican tahay soo ma jiraan waxa jira dad ka qoyska ka yimaadeen iyo background-koogu kaaga ka yara fiican yahay waxoogaa dhaqaale ahaan iyo sumcad ahaan laakiin adigu aad ka akhlaaq fiican tahay soo ma resourcesku ma ahan waxa meel ku geynaya taa uga walaal waxa meel ku geynaya ma aha dhaqaalaha ma aha meeshaad joogto ma aha aabbaha inuu wasiir yahay iyo aabbaha inuu yahay madaxweyne it's not lacagta ma aha meesha waxa lagu tegaya ma aha xidhiidhka iyo connectionka iyo waxyaabaha resourceska ay la taaban karo ma aha waxa meel ku geynaya waxa meel ku geynaya waa inaad adigu resourceful tahay in madaxaaga ay ku jiraan hami fikir dadaal soo jeed dad iska dhicin isdhiibid la'aan kalsooni iyo qab waxa wax kaa dhigaya waxa weeyaan inaad adigu resourceful noqoto inaad adigu noqoto qof aan isdhiibayn inaad adigu tiraahdo waxaan rabaa inaan wax ka noqdo duni qof walbo jooga waxaad ku hamiyeysaa adigu maanta kun qof oo kale oo xaafidiina degan ama deegaankiina degan baa ku hamiyey sax it's a fight waa dagaal markaa laakiin kunkiina qof haddaad wada guulaysataan isma dhimayso natiijadu adduunyada waxa yaalla wax ku filan qof kastoo adduunyada jooga ha u malayn haddaad adigu guulaysatay inaan anigu fashilmayo inaad adigu guulaysataa kuma xidhna inuu ninkana fashilmo haddaan wada guulaysano ilaahay u awoodaa ilaahay waxba kuma yara waxba ku yar haddii adduunyada inta joogto oo dhan ilaahay ay wax kaliya weydiistaan oo waxa qof walba inta ku filan siiyo ilaahay ma waxba ka beelahaya waxba ka yaraanaya soo nolosha waxa yaalla wax inaga badan inaga qof walba wuxuu ku guulaysan karaa yaalla laakiin aad u mid ila ogow adiga yaanay bartaada ka bixin ilaahay baa adi ballanqaadi noo sameeyey inaga adduunyada oo dhan buu ilaahay ballanqaadi sameeyey dadka ku nool qofkii dadaala soo jeeda ee bixiyo wixii natiijadu rabto wuu helayaa soo ma xitaa wanaag iyo qofku inuu hidaayad iyo maaragtay inuu hanuun helo ilaahay wuxuu ku xidhay inaan dadaalno aad xasuusataan aayadda والذين جاهدوا فينا idinkaa iga yaqaano quraanka waa idinkaa dareerinaya waxaad ogaataa wax walba inuu price leeyahay waxa kalood ogaataa oo meelaad ku qorataa ha u malayn qofka kaa resource fiican qofka kaa ila dhaqaalo fiican iyo qofka kaa yara hayn fiicani inuu kaa horeeyo ha aaminin waxa kaa horeeya ka kaa maskax fiican waxa kaa horeeya ka kaa hamiga fiican waxa kaa horeeya ka kaa dadaalka fiican waxa kaa horeeya ka kaa mayalka adag waxa kaa horeeya ka kaa akhlaaqda fiican waxa kaa horeeya ka kaa akhriska badan waxa kaa horeeya ka kaa hanka sareeya waxa kaa horeeya ka maskaxdiisa ay ku jirto wuxuu rabo inuu noqdaa ay u caddahay meeshuu socdo taasaa kaa horeysa aamin in resourceful aan noqotaa wax lagu noqdaa inaad adigu laabtaada ay ku jiraan waxyaabaha wax lagu noqdaa lagaa rabaa lagaama rabo inaad wax walba haysato si eega waxbaan idiin sheegaya tusaale yaroo fudud baan idiin sheegaya anigu markaan soo bilaabayay shaqadaan hadda haysto wallaahi summa wallaahi qof ima aaminin xitaa faamiligay ku dar hooyaday aabahay xitaa ima aaminin because waxaan bilaabayay aan ka shaqaynayay aan islahaa bilow wuxuu ahaa wax khiyaaliya wax dadku maadu haysteen buu ahaa qof baa intuu mikrofon qaato shaqo ka dhigani qofna ma aaminsanayn qof walba wuxuu odhanayay maxamed waad soo waalanaysaa qof walba wuxuu igu odhan jiray hadda waa caadi dad badan oo fanaaniin aan aragno mikrofon haysta ma fanaan baa rabtaa maya ma raba inaan noqdo oo ma waxaad noqotaa sheekh weyn baa rabtaa inaan noqoto maya ma raba inaan noqdo macallin baa rabtaa inaan noqoto maya ma raba inaan noqdo ma suugaanyahan baa rabtaa inaan noqoto maya ma raba inaan noqdo oo waxaan raadinaysaa muxuu ah markaa may mikrofonkaasu maan rabaa codkaa igu jiraan malaynayaa inuu dadka rajo u abuuri karo naftaydaan rabaa inaan challenge gareeyo waxa jira qof walba talent iyo hibo ku jirta hibadaasaan rabaa inaan naftayda uga faa'iideeyo dadkana uga faa'iideeyo oo hibadan mikrofonka kaa gashay maxay war Soomaali hadal bacdi nobody believed in me qofna ima aaminin walaal adigana qofna kuma aaminayo markaad ka fikirayso inaad wax noqoto dhakhtar noqoto engineer noqoto pilot noqoto muhandis noqoto macallin noqoto nobody will believe in you ha aaminin in lagu yaro sacabtami doono sacab ma jira meeshan saaxib marka hore waxa la ismarinayaa kadeed qof walba wuxuu wax ku meel maraya wuxuu isagu maskaxdiisa iyo naftiisa bixiyo soo dadka aaminaadooda ay isku haleyn cidna kuma aaminayso marka hore cidna wax ku marka hore waxa laga yaabaa in miskiin yaro cawlan oo daalayo lagu arko but believe in me haddaad adigu is aaminsan tahay oo aanad isdhiibayn oo kaa go'an tahay
qisaan mar hore uga sheekeeyay dad baan idinka sheekeynaya waan yaraa waxaan rabay waan qisadana waa maqashay baa laga yaabo waxaan rabay inaan meel masraxa ka hadlo xaflad la qabtay baa waxaan dhahay xafladaasaan rabaa inaan ka hadle walaal fursad iga siiya aad baan u yaraa waan caataysnaa hadda nin weyn oo suur xidhan baa dhegaysanaysaa marka waxaa laga yaabaa adiga laftigaaga ma jiraan war meesha ka baydho dadkii waaweynaaye joogay mee adiga igu odhalaaba laga yaabo you never know nin weyn oo xafladda waday wuxuu igu yidhi markaa ma adiga haa waa adeer dad waaweyn baa meesha joogay maxaad u sheegay dad waaweyn baa adeer meesha joogay maxaad u sheegay marka waan soo noqday waan ooyey I was young waan yaraa waan ooyey waxaan sir iska taa maalinba waa cayn soo saamaade soo saama marka maalintii horena waan idinka sheegay qisadaa waan malayna so waxaa dhacay haddii aan naftayda ka aamini lahaa ninkaasi wuxuu iga aaminay maan soo gaadheen meeshaan ka gaadhay shaqada soo maa waxaan raadinayna maan raadiyeen ma heleen dee soo maa so waxaa dhacay waan iskaga tagay waan ooyey markaa muraayaddaan hor istaagay muraayaddaydii baan hor istaago anaa isla hadlaya markaa muraayad baa qolkayga igu yara taallo isku daawan jiray markaan rabo inaan dadka wax sameeyo anigaa isku dayi jiray inaan naftayda la hadlo markaa muraayaddaa hor istaagaa anaa naftaydaan u sheegayaa inay noqon doonto qof wax sheegi karo ya waad noqonaysaa markaa mid baa iga dhex hadlay muraayaddii way iga soo dhex eegaysaa naftayda moogtay muraayad markaa isku eegaysa daadaa isu eegaya marka isla anigii baa isla hadlaya naftaydaa igu tiri waa adiga waakii maanta lagu lahaa dadka ka fadhiisa waar anigii baa aniga la hadlaya markaasaan simay wallaahi waan noqonaya waan dadaalaya haddaan dadaalo meel baan maraya qayrkan waan iska dhicin karaa haddaanan isdhiibin waan soconaya waxaasaan akhriyaa wanaagsan naftaydana waxay ku leedahay waar waxba noqon maysa dadka buuqa ka daa ma adiga maad adigu dagaalkii baa dhexdeeda ka biloobay 5 sano kadib maan joojiyay shaqadii sii dadaalay waan sii waday day in day out maalin walba waan sii waday every day waxaan akhriyi jiray buug iyo wax ku saabsan waxan mar walba waxaan dhegaysan jiray dadka waxaan yaqaana ee iga fiican I kept going maan joogsana waan sii waday qof kastoo isaluugana waxaan dareemi jiray inay mas-uuliyaday fuushayna waxay ahayd in qofka inuu beenaalo yahaan muujiyo markaa shaqaa kuu taala markaad kunkiinaa qof rabo inaan beenaalayaad ka dhigo it's a big job tough job soo ma sii waday markii dambe waxba